Assalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. Filimku wuxuu ku bilaabanayaa Generaal Nikhil Bakshi oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada Hindiya isagoo la hadlaya koox askar Hindi ah oo saaran markabka INS Vikrant oo ah markabka kaliya ee sabaynaya Hindiya ee diyaaradaha dagaalka iyo kuwa militariga qaada. Wuxuu la wadaagayaa sheeko dhiirigelin leh oo ku saabsan ka faa'iidaysiga cajiibka ah ee haweeney iyadoo u adeegaysa qaabka sirdoonka cilmi baarista iyo falanqaynta Wing Row, wakaaladda sirdoonka dibadda ee Hindiya. Bakistan, sheekadu waxay dib inoogu celinaysaa waqtigii ka hor dagaalkii Indo-Bakistan ee 1971. Hidayat Khan, halgamaa iyo sirdoon Hindi ah ayaa isku arkay inuu yahay xoggeeyaha dowladda Hindiya. Brigadier Parvez Sayid oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada Bakistan, saaxiibna kula ah gobolka Kashmir, ayuu kala hadlayaa gabadhiisa iyo mustaqbalkeeda, isagoo ku wajahan geeridiisa soo socota ee kansarka sababada awgeed. Hidayat rajadiisa ugu dambaysa waa inuu sii wado dhaqankii qoyska ee ahaa inuu dalka u adeego, isagoo gabadhiisa 20 jirka ah ee Seemad ku tababaray inay noqoto sirdoon isaga oo kale ah. Isla maalintaas, Hidayat Khan oo ah sirdoonka Hindiya ee Row ayaa kula kulmay gurigiisa Khalid Mir oo ah howlwadeen Hindi ah ee Row. Halkan waxaan ku ogaanay in Hidayat uu dhab ahaantii u shaqeeyo Row oo uu siinayaa macluumaad naxdin leh oo ku saabsan qorshayaasha dhow ee Bakistan ee ka dhanka ah Hindiya. Isagoo og in waqtigiisu xadidan yahay, Hidayat wuxuu soo jeedinayaa in Khalid Mir uu si degdeg ah u soo bandhigo tafaasiisha oo uu hawsha ku aamino gabadhiisa Seemad. Inkastoo markii hore uu diiday, Khalid aakhirkii wuxuu ogolaaday inuu u tababaro oo uu ku aamino hawsha. Muuqaalka xiga, Seemad, ardayad wax ka barata jaamacadda Delhi, ayaa soo wacay aabaheed oo ku qasbaya inay ku laabato gurigeeda si degdeg ah. Markii ay timid, Hidayat wuxuu u sheegay geeridiisa ku soo fool leh iyo xanuunka aan la difiri karin, wuxuuna ka codsaday Seemad inay gudato waajibaadkeeda basaasnimo ee wakaaladda Hindiya. Wuxuu sidoo kale u sharaxayaa in si ay sidaas u samayso ay khasab tahay inay guursato wiilka saaxiibkiisa uu aaminsan yahay ee Bakistan oo ururiya macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan qorshahooda ka dhanka ah Hindiya. Markay tan maqasho, Seemad way naxday oo way kari weyday erayo ay ku muujiso xaaladeeda. Si kastaba ha ahaatee, kadib habeen ay ka fiirsatay arrintan iyo codsiga aabaheeda, inkastoo hooyadeed Teji Khan ay diiday, Seemad waxay qaadatay go'aan adag oo ah inay ka tagto waxbarashadeeda oo ay gasho tababar degdeg ah oo ay ku noqonayso basaasad. Intaas kadib, iyadoo ay hogaaminayaan sarkaal sare oo Row ah, Khalid Mir, iyo kaaliyihiisa halwadeen da'yar oo lagu magacaabo Bakshi, Seemad waxay qaadanaysaa tababar adag oo la xiriira qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin fanka dagaalka, toogashada iyo farsamooyinka isgaarsiinta ee qarsoodiga ah sida u beddelidda macluumaadka qoran xarfo qarsoon ahaan. Xirfadahani waxa ay lama huraan u yihiin gudbinta xogta muhiimka ah ee Hindiya iyadoo aan wax shaki ah keenin. Kadib markay qaadatay tababarkeedii dhammaystirnaa, Seemad waxay guursatay Iqbal Sayid, wiilka Brigadier Sayid, sarkaal militari oo Bakistan ah. Guurkani wuxuu la mid yahay dabool muhiim ah oo awood u siinaya Seemad inay gudaha u gasho Bakistan oo ay u soo ururiso macluumaad qiimo leh dalkeeda hooyo. Seemad waxay si fudud ula qabsanaysaa nolosheeda cusub iyadoo soo jiidanaysa sodohdeed oo ay helaysaa kalsoonidooda. Waxaa intaa dheer, dalacsiinta sodogeed ee gaashaanle sare waxay siinaysaa fursad wanaagsan helitaanka dukumentiyada muhiimka ah ee amniga qaranka iyo shakhsiyaadka saamaynta ku leh ciidamada difaaca. Tani waxay awood u siinaysaa Seemad inay ururiso macluumaadka muhiimka ah ee hawsheeda. Waxay ka faa'iidaysanaysaa fursadda shirarka lagu qabto xafiiska guriga ee Parvez, halkaas oo ay ka dhacayaan doodaha ku saabsan amniga qaranka. Seemad waxay si degdeg ah ugu soo gudbinaysaa tafaasiishan Khalid Mir iyadoo isticmaalaysa luuqadooda daahsoon si ay uga fogaato in la qabto. Si ay u xaqiijiso isgaarsiin sugan, isla markiiba waxay si taxadar leh musqusha ugu rakibaysaa khadka telefoonka sirta ah iyadoo ku xiraysa qalabka gudbinta fariinta. Habayntan sirta ah waxay fariimo ugu diraysaa Khalid Mir. Waxay si taxadar leh u ilaalisaa faahfaahinta marka ay gudbinayso xogta sirta ah ee ku saabsan howlgallada militariga Bakistan iyo istiraatiijiyadaha, iyadoo siinaysa maamulaheeda fikrado muhiim ah. Si kastaba ha ahaatee, dembila'aanteeda waxaa ka shakiyey shaqaale la yiraahdo Abdul oo guriga jooga. Maalin maalmaha ka mid ah, Seemad waxay ka faa'iidaysanaysaa fursad ay ku gasho xafiiska guriga ee Parvez marka uu ka codsado inay nadiifiso. Wuxuu ku aaminay furaha oo uu ka fariistay si uu u seexdo. Seemad waxay si qarsoodi ah u soo gashay xafiiska waxayna ku rakibtay mikrofoono si ay u ururiso xog dhammaystiran oo ku saabsan shirarka iyo qorshayaasha Bakistan ee ka dhanka ah Hindiya. Ka hor intaysan furaha ku soo celin, Parvez waxay si xariifnimo leh uga samaynaysaa sawir iyadoo isticmaalaysa saabuun. Maalintii xigtay, keligeed ayaa ku dhiiratay suuqa, halkaas oo ay kula kulantay wakiil isu soo ekaysiiyey darawal baabuur oo ay u dhibtay saabuunta. Waxyar kadib waxay helaysaa furaha koobiga ah ee xafiiska. Dhanka kale, Seemad waxay isku aragtay inay jacayl u qaaday Iqbal oo ay la yeelanayso xiriir jireed isaga. Muuqaalka xiga, Seemad waxay helaysaa akhbaarta qalbi-jabka leh ee geerida aabaheed, taasoo keentay inay lumiso xakamaynta dareemaheeda. Iyadoo uu Iqbal weheliyo ayay ku laabanaysaa Hindiya si ay uga qayb gasho aaska.
taasoo muujinaysa jaceylka qotada dheer ee ay u qabto aabaheed. maadaama ay murugadu ka badatay way ku adkaanaysaa inay dib u soo ceshato xasiloonideeda. si kastaba ha ahaatee waxay isku keenaysaa geesinimadeeda oo ay xusuusanaysaa hawshii uu aabaheed u wakiishay, waxayna Iqbaal kula soo noqotay Bakistaan. kadib inta lagu guda jiro kala fadhi kale oo nadiifin ah oo ka dhacay xafiiska Parvez, Samed waxay aragtay fayl cas oo muhiim ah oo miiska saaran, iyadoo xaqiiqsatay tirada badan ee macluumaadka muhiimka ah ee hadda jirta jagada cusub ee Parvez ee gaashaanle sare awgeed. kadib waxay go'aansatay inay qaadato faylkii oo ay baarto si ay xogta u ururiso uguna dirto Khalid. inkastoo ay ku jirto khatar sare, haddana waxay maaraynaysaa inay ururiso tafaasiisha lagama maarmaanka ah oo ay si guul leh ugu gudbinaysaa Khalid Mir. si kastaba ha ahaatee, Abdul oo ka shakiyey Samed tan iyo markii ay timid ayaa raacay falkeeda oo uu galay musqusha, balse wuxuu ogaaday aqoonsigeeda dhabta ah. markuu arkay Abdul wuu cararay suu dadka kale ugu wargeliyo khiyaanadeeda, isagoo sita qayb ka mid ah mashiinka teleprinterka si ay caddeyn ahaan ugu noqoto. iskuday quus ah oo ay ku doonayso inay ku ilaaliso sirteeda, Samed waxay raacday Abdul iyadoo aad uga qoomamaynaysa. waxay isticmaalaysaa gaari si ay ugu dhufato oo ay u disho, iyadoo hubinaysa in aqoonsigeeda dhabta ah uu weli sir ahaado. dhacdadan murugada leh ayaa Samed ku keentay qiiro badan, aad ayayna u oysay kadib markii ay guriga ku soo laabatay. marka xigta waxaan ogaanay in Abdul uusan dhab dhiman, balse uu jiifo sariirta isbitaalka isagoo xaaladiisu liidato. markuu Parvez walaalkii Mehboob soo booqdo Abdul, wuxuu isku dayay inuu sheego aqoonsiga dhabta ah ee Samed si murugo leh. ka hor intuusan sidaa yeelin, Abdul wuu dhintay. Mehboob aad ayay u saamaysay dhacdadan, maadaama qoyskiisu ay Abdul u arkayeen mid ka mid ah adeegayaashooda ugu daacadsan uguna kalsoonida badnaa sanado badan. isagoo go'aansaday inuu soo saaro runta ka dambaysa dhimashada Abdul, Mehboob wuxuu go'aansaday inuu naftiisa baaro kiiskan oo uu soo ogaado gacan ku dhiglaha dhabta ah. dhanka kale, Khalid iyo Nikhil waxay ku guulaysteen inay dejiyaan macluumaadka ay bixisay Samed, iyagoo ogaaday in Bakistaan ay qorshaynayso inay weerarto Hindiya iyadoo soo maraysa wadooyinka badda oo INS Vikrant uu yahay bartilmaameedkooda ugu weyn. si degdeg ah ayay u booqanayaan xarumaha ciidamada si ay ugu gudbiyaan xogtan muhiimka ah. si kastaba ha ahaatee, saraakiishu way ka warwareegeen inay rumaystaan, iyagoo su'aal ka keenaya kalsoonida ilaha ay ka helaan xogtan, waxayna diideen inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah. dhinaca kale, Samed waxay si taxadar leh u ururinaysaa dhammaan qaybaha mashiinka wax lagu qoro oo ay ku ridaysaa bac. kadib waxay si qarsoodi ah uga tagtay boorsada qolka Abdul, iyadoo rajaynaysa in hadduu baaruhu arko mashiinka ay si been abuur ah ugu eedayn doonaan Abdul qiyaamo. iyadoo raadinaysa tilmaamo iyo caawimo, Samed waxay la xiriiraysaa basaas Hindi ah oo lagu magacaabo Kabir Mortaza oo Bakistaan jooga, iyadoo u sheegtay xaaladeeda iyo baaritaanka socda. markuu maqlay macluumaadkeeda, Kabir wuxuu soo jeedinayaa inay disho Mehboob si ay u banayso jidkeeda, isagoo siinaya tilmaamo ku saabsan helitaanka hub iyo dilkiisa iyadoo aan soo jiidan dareenka dadka. iyadoo raacaysa soo jeedintii Kabir, Samed waxay kula kulantay Mehboob xafiiskiisa. si taxadar leh ayayna jirkiisa ugu durtay sun iyadoo kaashanaysa dalad. waxay ka tegaysaa goobta iyadoo aan soo jiidan dareenka. daqiiqado kadib, sunta darteed Mehboob waxaa ku soo booday wadno xanuun dilaa ah, waxaana la arkay isagoo dhintay oo sagxadda jiifa. muuqaalkii xigay mid mid ayaa loo soo qabtay dhammaan jaajuusiinta Hindida ee Bakistaan. Khalidna wuu ka war helay. wuxuu si degdeg ah u go'aansaday inuu badbaadiyo Samed intay goorigoor tahay, isagoo ku wargeliyey khatarta ku soo fool leh, waxaana uu faray inay isu diyaariso daadguraynta. dhanka kale, askar booliis ah ayaa timid guriga Parvez si ay u baaraan qolka Abdul. waxay ogaadeen qaybaha haray ee mashiinka isgaarsiinta, taasoo keentay inay rumaystaan in Abdul uu yahay kan sida qarsoodiga ah macluumaadka ugu diriyey Hindida. si kastaba ha ahaatee, Iqbaal oo aan awoodin inuu aqbalo khiyaamada lagu eedeeyey Abdul ayaa si fiican u baaraya qolkiisa, balse nasiib daro wuxuu helay qayb ka mid ah jijintii Samed uu hadiyad ahaan horay ugu siiyey, taasoo keentay inuu ka shakiyo kulug lahaanshaha xaaskiisa oo ah basaaska dhabta ah ee Hindida. dareenka ayaa ka batay. Iqbaal wuxuu ku cararay musqusha, isla markaas Samed waxay ku soo laabatay guriga oo ay aragtay lebiskii Iqbaal oo sariirta saaran iyo gabal jijin ah. iyadoo ku qanacsan in Iqbaal uu ogaaday aqoonsigeeda dhabta ah, waxay ku qabatay baskoolad iyadoo diyaar u ah inay qaado tallaabooyin adag. intii ay baskoolada ku haysay, Iqbaal wuxuu qirtay jaceylkiisa, laakiin wuxuu ku adkaystay in daacadnimadiisu ay la jirto qaranka si kastaba. Samed dareen la mid ah ayay qabtaa, laakiin intaanay dilin waxaa qolka soo galay wiil yar oo isku duubay. wiilkan waa ardaygii ay bari jirtay muusiga waqtigeeda firaaqada ah. Samed ayaa markaa wiilka u adeegsanaysa gabaad ahaan oo waxay isku dabooshay indho shareer, waxayna ka baxsatay guriga. markay baxdo, Iqbaal wuxuu la kulmay aabihii oo uu u sheegay wax kasta oo ku saabsan Samed, isagoo ku booriyey inuu u diro ciidamo baadigoobaya oo soo qabta. muuqaalka soo socda, Khalid Mir oo isu ekaysiiyey sarkaal Bakistaani ah ayaa lagu arkay gudaha Bakistaan isaga iyo wakiilo kale, kuwaasoo dhammaantood u jooga badbaadinta Samed. nasiib dar ka hor intaanay Samed helin, Iqbaal ayaa arkay oo soo dabagalay. isagoo dareemaya khatarta soo socota, Khalid wuxuu si degdeg ah u amray mid ka mid ah wakiiladiisa inuu dilo iyada ka hor intaan la qaban. Khalid wuxuu sidaas u samaynayaa sababtoo ah ujeedadiisu waa inuu ka ilaaliyo Samed inay sheegto wax macluumaad ah oo ku saabsan wakaaladooda ama Hindiya.
iyadoo la raacayo amarkiisa bam gacmeed ayaa lagu qarxiyey meel u dhow Seemad iyo Iqbaal taasoo keentay geeridooda naxdinta leh dabadeed Khalid iyo kooxdiisu waxay isu diyaariyeen inay Bakistaan uga baxaan sida ugu dhaqsaha badan si kastaba ha ahaatee si la yaab leh albaabka ayaa la soo garaacay Khalid si taxaddar leh ayuu u furay balse wuu naxay markuu arkay Seemad oo hortiisa taagan kadib waxaa la ogaaday in Seemad ay ku guuleysatay inay ka badbaado qaraxas iyadoo ku bedeshay booskeeda wakiil kale oo isna soo gashtay indhashareer waxay u dirtay wakiilka bedelka ah si uu la kulmo Khalid halka iyadana ay hubinaysay soo celinta badbaadada leh ee wiilka Seemad waxay aad uga murugootay inay weyday Iqbaal waxayna su'aal ka keentay ficilka Khalid iyadoo muujisay sida ay uga xun tahay in kastoo ay sanado badan wada shaqaynayeen uu Khalid isku dayay inuu dilo isagoo ka jawaabaya Khalid wuxuu isku dayayaa inuu qiil u raadiyo ficilkiisa isagoo ku nuuxnuuxsaday in qaranka iyo nabadgelyaduba ay wax walba ka sareeyaan waayo aragnimadeeda Seemad waxay si tartiib ah u garanaysaa muhiimadda cilaaqaadka shakhsi ahaaneed waxayna ka hortagaysaa xaqiiqooyinka adag ee shaqadeeda Seemad oo aad u saameeyay burburkii ay geysatay iyo go'aamadii akhlaaq xumada ahaa ee ay samaysay ayay go'aansatay inay Hindiya ku laabato oo Khalid ayaa ka caawinaya arrintaas muuqaalka soo socda Seemad waxay gaadhay Hindiya markii ay isbaartay waxay ogaatay inay dhab ahaantii uur leedahay inkastoo ay dadka kala soo jeediyeen in ilmaha la soo rido Seemad way diiday inay sidaas samayso oo waxay go'aansatay inay umusho taasoo cadaynaysa in jaceylkeeda Iqbaal uu ahaa mid run ah dhanka kale saraakiisha ciidamada Hindiya ayaa ugu dambeyntii ku qancay xogta ku saabsan ciidamada Bakistaan ee qorsheynaya inay weeraraan Hindiya iyagoo soo maraya wadooyinka badda oo kaashanaya PNS Ghazi oo ah maraakiibta gaarka ah ee Bakistaan ka hor intaysan Bakistaan sidaas yeelin ciidamada Hindiya ayaa soo daadgureynaya tiro diyaarado dagaal ah oo ka tirsan INS Vikrant waxayna burburiyeen PNS Ghazi taasoo Bakistaan ku qasabtay inay dib uga laabato oo ay aqbasho jabka ka soo gaaray dagaalka mar kale iyo General Nikhil Bakshi oo la hadlaya saraakiisha ciidamada isagoo uga warbixiyay dagaalka iyo sida ay uga mahadcelinayaan dhammaan dadka gacanta ka geystay inay guul gaaraan waxa kale oo uu xusayaa in marka ay u dabaaldegayaan guusha ay sidoo kale maanka ku haynayaan nafhurnimadii iyo khasaarihii ay la kulmeen intii ay halkaas gaarayeen muuqaalka ayaa markaa u wareegaya wiilka Seemad Samar Sayid oo hadda ka mid noqday saraakiisha ciidamada Hindiya aadna ugu faanaya waxqabadkii hooyadii muuqaalkii ugu dambeeyay waxaan aragnaa Seemad oo kaligeed fadhida meel daaqad u dhow oo dibadda eegaysa iyadoo rajaynaysa inay aragto wiilkeeda si dhaqso ah filimku wuxuu markaas ku dhamaanayaa qoraal lagu xusuusanayo dhammaan qalbiyadii geesiyaasha ahaa ee daahsoonaanta uga qayb qaatay taariikhda ummadda muuqaalka halkan ayuu ku egyahay fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale kulanti dambe oo aad u xiiso badan mahadsanid